odayaal baa ka hadlay madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka la yidhaha madax dhaqameed dee horta wuxuu mas-uul ka yahay reerkaa doortay qaranka isaguma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraameyna kaalin weyn bay inoo hayaan madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa kow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo addigiisa war laga nabad galo oo dhowra madax dhaqameedka waxa laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ayaa axsaan u dhexda madax dhaqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer Soomaaliya ah inkastoo aan qorayn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaw dadka doortay markuu la hadlayo wax qabanayo waxa la suldaanku uu gudoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhameeyo dadku waxay ku seshiyaanay u bataan ay gudoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo miidiya ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diinta ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xisaara madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku waananaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suubada ahaa ee dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wixii loo xisaabto uu bad kala galo wixii badda kaga soo noqon dee ha u diyaar garoob man dakhala maa laa yacni laqaya maa laa yardii bad aanad garan haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga deenay dadka waaweyn wax laga dhageysta ee magac lehna waa inuu ahaadaa war run qof weyn oo fagaariye miidiyaha been ka sheegay waa mar subxaanallah su'aal waxay tawargin oo geed qof ka dhacday kaana intaasaan